السلام عليكم. haddii uu qof kuu dhib sheegto macnaheedu ma qofkaas inuu adiga kugu calaayo ay macnaheedu tahay inuu qofkaas dhibkiisa uu kuu sheegto kadibna aad ka xaliso. tusaale aan ku siiyo, haddii uu qof maanta ka helo kadibna ku jeclaado ku dan sheegto adiga inuu kugu jecel yahay adiga sidaa tahay, cid kale ha uga sheekayn. sababtoo ah haddii aad qof kale u sheekayso qofka uu kugu yiraahday waxaad tahay qof daciif ah, ma doonaysaa inaad noqoto qof adag. haddii uu qof maanta wax kuu sheego qof kale ha uga sheekayn, xitaa ha wanaagsanaato ama ha xumaatee. sababtoo ah qofkaasi damiirkiisa wuxuu siiyey inuu adiga dhibkiisa kuu sheegto kadibna aad ka xaliso. laga yaabay inaad dhahdo waan ku xumaa iga raali noqo ama aad aqbasho, laakiin macnaheedu ma aha inaad qof kale aad uga sheekayso wuxuu wiilkaani sidoo kale ama gabadhaani ay kugu dhahday adiga. haddii aad rabto inaad noqoto qof geesi ah, geesiga sidiisa wuxuu leeyahay dabeecado lagu yaqaano. geesiga dabeecad uma lahan haddii uu qof maanta u yimaado kadibna dhibkiisu u sheegto isla markaana dhibkiisu uu qof kale u sheego. geesiga dabeecadiisa kama mid ah midaas, laakiin midugu walaashaygi ama walaalkaygiyo. haddii aad aragto geesiga sidiisaba waa kan qariya sirta walaalihiis, laakiin sirta walaasha ama walaalka haddii aad qof kale u sheekayso damiir laabaad tahay walaashaygi ama walaalkaygiyo. wallaahi waa run damiir laabaad tahay. sababtoo ah qofkan maanta kalsooni iyo aaminaad uu kugu qabo darteeda waxaan kugu sheegay adiga, laakiin waxaad u qaadatay adiga inuu qofkan kugu ciyaaray adiga. balse qiimaha uu qofkaas agtaada maanta ka yahay waxaad ogaan doontaa markii uu garabkaaga ka faaruqo. sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa yeelaa wuu iloobaa laakiin la yeelaa ma iloobo. qofkaasi wuu xasuusnaan doonaa wixii aad ku samaysay, laakiin qofka maanta waxaa sameeyey wuu iska ilaabaa, balse wuxuu soo xasuusan doonaa markii uu garabkiisa ka faaruqo kadib ayuu ka shalaayi doonaa. Soomaalidana waxay tiraahdaa shalaay ma horeysay way dambaysaa. sidoo kale walaashaygi ama walaalkaygiyo waxaan kugu waanin lahaa qof ku jecel ha qiyaamin, qof kugu dan sheegtay danihiisa qof kale ha uga sheekayn, qof kuu aaminay ha qiyaamin, qof kuu kalsoonidiisa ha beerdarayn. walaashaygi ama walaalkaygiyo waxaan ku leeyahay anigana ku guulayso labada daarood, yacni adduun iyo aakhiraba. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.